بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلتي وناكسن خيارتنا داونا يساي إذ الكيمبا ميلكستوات جوكتان كسو دوادا قيب كمده برنامجكا ندار شو وآنو إذ كواهينو معلومات كالدوان هدوا مانتوا مالين قميسة تاريخنا اي تاي لباتن بشا سبتمبر سنة كالبدا كل لباتن برنامجكا إنو وحينو كاقاها اللي دونا hadalkii uu jeediyay shalayto madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo walaac fara badan ka abuuray gudaha wadanka Ruushka mudaharaadyo ka soconaya magaalooyin kala duwan oo Ruushka ka tirsan magaalada Moscow oo dad badan la xirxiray ilaa 1,000 qof la sheegayo inay ka soo horjeedaan hadalka madaxweynaha oo ku jirtay 300,000 oo askari in la doonayo in ciidamada lagu daro iyadoo dhalinyarada loo diidan yahay inay ka safraan wadankaas daadooda u dhaxayso 17 sano ilaa 60 sano haddaba arintan waxay keentay in dad badan ay wadanka ka firxadaan oo la kala cararo shirkadihii diyaaradaha oo sheegaya in dadka aanay u haynin boos oo tikidhadii la goostay 24 saac gudahood wadanka Ruushka oo lagu kala cararayo haddaba warbixinadaas ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa anigoo nadaara ayaa barnaamijka idin la socodsiinaya daawadayaal barnaamijyadeena waxaa gacan naga siiya shirkadda xawaalada ee la yiraahdo Safari Remit adeegeedu waa online lacagaha ugu horeeya 3 jeerna waa lacag la'aan fadlan booqo bogooda www.safariremit.com Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. Xawaaladan waa online. waatahay daawadayaal barnaamijkeena ayaanu ku eegaynaa saameynta uu yeeshay hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ahaa in heegan la geliyay ciidamadiisa uuna u diyaar garoobayo dagaal dhan kasta uu noqdo xitaa nuclear taasoo dadka cabsi fara badan ku abuurtay waxa sidoo kale dadku ay aad uga walaacsan yihiin iyadoo lagu qasbayo dhalinyarada inay askarta ka mid noqdaan oo ay markaa dagaalka ka qayb galaan cabsidaas dhinacyada kala duwan leh ayaa dadka argagax ku abuurtay iyadoo qof walba oo dhalinyaraha uu doonayo inuu ka baxsado wadankaas iyadoo dagaalka aanay doonaynin dadka waxa sidoo kale waalidiinta iyo dadka dhalinyarada dhalayna iyaguna ay ka fakarayaan sidii dhalinyaradooda ay ula carari lahaayeen haddaba taas markii ay dhacday waxaa bilowday in markiiba dadku ay tikidhada wada goostaan oo wadamada ugu soo horeeya ee aan fiisaha laga rabin dadka Ruushka ah oo fiisa la'aanta ay ku tagi karaan in markiiba dadku ay u kala carareen haddaba wadamada dadku ay u kala carareen way tiro badan yihiin ilaa dhowr wadan aan qariidadan idin tuso si aad u aragtaan waxaa leeyahay dadku waxay u kala carareen wadamada Iran, Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, Armenia iyo Turkiga oo laba magaalo oo kala ah Istanbul iyo Antalya ay aad dadka u tagayaan haddaba arintan waxay abuurtay volkaane gudaha wadanka Ruushka ah dadkii Ruushka intii carartay markii la ogaaday tikidhada inay goosteen oo dadku ay socdaan ayaa dawladdu waxay soo saartay qawaaniin lagu mamnuucayo wadanka inay ka safraan dadka daadooda u dhaxayso dhalinyarada ah 17 ilaa 65 ilaa wasaaradda gaashaandhigu ay fasaxdo arintan dad badan way isweydiiyeen waxay leeyihiin maxaa keenay arinkan Ruushka xaaladiisu imika waa sii xumaanaysa ayaa la leeyahay bal aan aragno sawirro laga soo qaaday mudaharaadyo waaweyn oo ka dhacay meelo kala duwan oo ka tirsan wadanka Ruushka mudaharaadyada sida arkaysaan qaarkood waxay ka dhaceen magaalada Moscow ilaa 1,000 qof ayaa la sheegayaa in la soo qabtay oo la xiray mudaharaadyadu waxay sidoo kale ka dhaceen meelo kala duwan oo wadankaas ah dadku waxa ay ka cabanayaan
amaradan cusub ee dowladda ka soo baxay dadkan lagu qasbayo ciidamada dadku waxa ay ku qaylinayaan oo ay doonayaan aaway ciidankeenii lalahaa waa ciidanka labaad ee adduunyada ugu awooda badan aaway maxay tahay dhalinyaradan iskuullada dhigato la qasbayo dagaal weyn oo annaga hadda aan ku jirno uma jeedno Ukraine miyaan ka cararaynaa waxaasay dadku ku qaylinayaan marka runtii waa arrin aad cajiib u ah in dadku ay heerkaas gaaraan waa tahay dhanka kale Chechnya waa jamhuuriyad dad muslimiina badankeed ay ku nool yihiin jamhuuriyaddaas waa ognahay taariikhay ku leedahay Ruushka dad badan oo muslimiina ayaa ku nool Ruushka wuu burburiyey wuu qabsaday xoogu ku haystaa nin Ramadan Khadyrov leeraado oo muslim sheegta laakiin nin xun ah oo dadka laayay ayaa halkaa uu Ruushka u dhiibtay oo mas'uul uga ah Ramadaankii marka amarkii Putin uu soo siiyo qaataa waa la xoog baa lagu qabanayaa dadkii ciidan baa laga dhigayaa qafaal ayaa leeyahay waa la qafaalayaa dadka askara laga dhigayaa haddaba sawiradan aan aragno masaajidka weyn ee magaalada Grozny caasimadda Chechnya ayaa waxaa mudaharaad ku sameeyay haween fara badan oo boqolaal ayaa isugu soo baxay iyagoo ka codsanaya in ragooda oo la qabqabtay lana doonayo dagaalka Ukraine in qasab lagu geeyo loo soo daayo haddaba arintan ayaa dhacday haweenkan marka way isku soo baxeen waxay leeyihiin warahana loo soo daayo rageena waayahay waxa isna hadlay Ramadan Khadyrov oo wargeyskan uu soo xigtay wuxuu leeyahay waxaan qabanay 20 dumar ah oo markaasi iyagu ka soo horjeeda inay ragooda askarta ka mid noqdaan dadkii waa la qasbayaa dagaal marban waa la kala cararaa ilaahay baa ruucbi iyo argagax iyo cabsi ku beeray dadkii Ruushka ahaa hadda moogtahay dad badan oo waxa iska jira siyaasad ahaan Ruushka taageersanahay dhaha kommentiyadooda ayaan akhriyaa qofka meel uu taageeri karaa meel uu diidi karaa laakiin xaqaa'iqa dhabta ee jira qofna ma inkiri karo ma diidi karo waxa dhabta ee taagan qof diidi kartaa lama arko Ruushka dhibaato weyn buu runtii islaamka u geystay wuu burburiyay Suuriya midda uu ku dhigay documentary laga sameeyay haddii aad daawataan maraan soo gudbin doonaa Ruush dambaan taageersanaa qof muslim ah oo dhiig muslim ku jiro ma ka suura geliso nimankii bambooyinka arxan darada ugu riday dadka muslimiinta waliba sunniga ah laayay korkooda ku kor kaabeeyay oo yiri muslim annaga maba maqli karnaba nimankaas hadda iyagii haysata ilaahay ba argagax ku abuur iyagoo hubkii haysta wax kasta haysta wax u dagaalamay laayeen shalay waa ogeydeen waxay leeyihiin ajnabi baan qoranaynaa hal sana jinsiyad ku siinaynaa dadkii marka way kala cararayaan sawirkan aan aragno ay samaysay flight radar 24 safaradii shalay 21 bisha ka baxay wadanka Ruushka ee kala tagay wadamada Iran Kazakhstan Azerbaijan Georgia Armenia iyo Turkiga sida ay diyaaraduhu dadku ugu cararayeen 24 saac ee ugu dambeeyay maadaama dadka Ruushka Yurubta kale aanay tagi karin meelaha u furan inta flight ee ka baxday Fiiriya waa tahay marka halkaas markay marayso oo argagaxu uu socdo mudaharaadyadu ay socdaan shirkadihii diyaaraduhu maxay wara soo saareen shirkadihii diyaarada ay idintus shirkadda diyaaradaha Turkish Airlines oo kamid ah shirkadaha waaweyn ee taga wali Ruushka ee iyagu xiriirkoodu wanaagsan yahay ayaa sheegtay ilaa toddobaadka soo socda in diyaaradoodu aanay kursi lahayn oo 24 saac gudahood
lagu iibsaday wixii ay haysteen oo kuraastii diyaaradihii halkaa tegi lahaa oo dhan. meelaha ugu badan Istanbul iyo Antalya way buuxaan, dadkuna sidaas ayay tikidhada u iibsanayaan. waxaa sidoo kale warbixintan ku jira shirkadda Google, warbixin ay soo saartay. Google-ka qof walba oo Google gareeya waxbuu raadinayaa markaad tikid raadinaysid, markaa wax raadinaysid. marka Google waxay leedahay saacadihii ugu dambeeyay ilaa hadalkii Putin kadib, dadka Ruushka Google waxaa galayay inta ugu badan dad tikid raadinaya waa la cararaya. cabsi, argagax, wareer, mashaakil ayaa dadkii ku furmay. marka waa arkaysaan marka xaaladdu halkaasay maraysaa. mushkiladaasaa taagan. wasaaraddii gaashaandhigga qofaan wadanin ma bixi karaa la yidhi, heerkaasaa la maraa. waayahay diyaarado keliya may dadku ku baxsanayaan mise dhulkana way marayaan? meesha keliya ee dhul inay maraan u furan oo Yurub ay ku galaan waa waddanka Finland iyo waddanka Georgia. waddamadii kale dhan waa diideen. Georgia xataa waa diiday, hadda ma galaysaanay tiri. laakiin Finland aan idin tuso xuduudkeeda Ruushka iyo Finland. wariyaashu video ay kasoo duubeen sida safka ay baabuurta ugu jiraan Ruushku ay waddankooda kasoo cararayaan, ay rabaan Yurubtan inay soo galaan. bal arag. marka waa arkaysaan halkaasuu xaalku marayaa. xaaladdu halkaasay maraysaa. dadkii Ruushka ahaa hadalkii madaxweynahoodu waa uga daray. cabsi baa dadkii kusoo degtay. waxay ogaadeen waxa Vladimir Putin wado inaanay dadka anfacayn. waddan dhanaan ku duulaa, goboladiisaan iska soo qaadanaa, ciddii soo weerarta nuclearadaan ku dhufanaa. adduunka nuclear cid kasta waa haysataa. barnaamijkan lamida ku kulmayno. sidaa iyo nabadgelyo. fadlan barnaamijka share garay, like saar, followna ku qabo haddii aad ku cusub tahay page-keena Facebook-ka. fadlan haddii aad YouTube-ka joogtidna subscribe-ka saar, sidoo kalena gambaleel ka furo. intaan mar kale kulmayno, sidaa iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.